بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada qurxi caafimaad asxaabta cusub kusoo dhawaada channelka waa channelkiini please subscribe asxaabtii hore noola joogtayna aada u mahadsantihiin please like share and subscribe insha Allah gambalaalkana ku dhufso waxaan jeclahay inaad ka heli doontaan waxaa caawada casho yar oo fudud maasha Allah oo malawax iyo qudaar ka kooban qofkii jecelna cheese buu ku sii darsan karaa waa casho yar oo caafimaad leh waqti kooban aad diyaarinaysid maasha Allah insha Allah channelkan waxaa ka heli doontaan waxyaalaha cuntooyin simple ah healthy na caruurta jeclaanayaan qof kastana ka helaya maasha Allah dhadhan leh insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo isla socono malawaxan saas u qurux badan yahay cheese iyo dhexda waxaan ka galiyay qudaar iyo tuna fish maasha Allah isla socono marka inta uu ka kooban yahay halka waxaan ku soo shubtay 3 koob oo bura hadba qiyaasta familkaaga ka dhiganaysa insha Allah waxaan ku soo daray 2 xabo ukun oo ku daraya insha Allah biyo qandacana waa haystaa baalkaasna oo ku shiidanaya marka burka waxa ku jira waxa marka hore waxa ku soo daray 2 qaado sokor iyo cusbo yar maasha Allah marka insha Allah isla socono hadii Ilaahay yiraahdo 2 xabo ukunta waa ku soo daraya insha Allah soo jibinaya wal ku soo shubaya markaas ku daraya malawax si simple waayo loo sameeyo maasha Allah malawaxaagi caadi u sameysanaysay dhexda xaga gashanaysa qudaar insha Allah caruurtu aad uga helaan baalkan maasha Allah daa u sameysan casho ama quraac waxa jecesha uga dhigi kara ukuntii biyo hadda ku daray insha Allah marka mashiinkaas aan ku qasaya daarta gacantaada ku qasanaysa hadba waxa jeceshahay insha Allah waa ku qasanaysa marka maasha Allah hand blender kaas ku qasaya insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo si fiican u qasaya insha Allah marka biyo kale taa ku daray hadba qiyaasta malawax inuu aad u jilicsan yahay fiican marka dubanaysid canjeerada ka jilicsan yahay marka biyaha inta uu qaato anuu 2 galaas camal baan ku qasaya waa 3 koob oo bura marka maasha Allah si fiican inuu isku dhex galo oo wax burbur oo sayeelan insha Allah baarabandii Ilaahay yiraahdo si fiican u qasmo marka maasha Allah isla socono had si fiican u qasmay waxa gooni kale to diyaarinaya qudaarta dhexda ka galin lahaa malawaxi waa kana dabkan soo saaray maasha Allah xabadii horeysa ku soo shubay waa rogaya marka maasha Allah insha Allah markay xoogaa soo bislaato kadaala u rogaya marka saliid yar hada isleedahay birtu ka qabsanaya ku sameysan karaa digsigan waxaan ku soo diyaarinaya insha Allah asagana xabad basal aan soo jarjaray tuna fish iyo barbarooni ku sameynaya insha Allah malawaxi waa kana saan markuu yahay rogaysa hadaa rabti marka saliid yar waa ku darsan karaa waa ku rogi karaa hadaa rabti inta ku rogi karaa aan labadaba waa idin ku tusaya insha Allah waa ku sameynaya dirbeeno birta ku dubaysid andaynan stick tahay soo wax ku dhageyn uma baahnid saliid haday ku dhageysana wax yar saliid u baahan tahay maasha Allah waa kana digsiga kale dhinac uu saaran yahay waxa ku waxaynaya basashi marka hore basashan bislaynaya insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo caruurta inta badan qudaarta qayb diidan dareemaan markay cunayaan marka soo bislaynaya maasha Allah malawaxina waa kana gooni ba u dubaya maasha Allah si fiican malawax waxa ku soo baxaya qurux badan oo gold ah dahab kalarkiisu yahay laakiin insha Allah wax yar waqti yar bay ka qaadanaysaa inaad diyaarisid waxa dhan hadii Ilaahay yiraahdo casho yar macaan fudud caafimaad leh maasha Allah caruurtuna aad ay u jecel yihiin xabad kale taa ku soo shubay hadaa rabtid inta qaadada ku shubtid
ama weelka u isticmaalid oo ku wareejin kartaa, ama sida canjeerada ama malawaxa u dubaysa kula wareejin kartaa, laakiin xoogaa inaad adkeysid waa fiican waayo malawaxa aad u jilicsan yahay. marka maasha Allah digsiga basashaan dhinac ka walaaqaya ayadana malawaxa hal mar ba isla dubanaysaa waxaaga dhan wax yar 20 daqiiqo kaga soo baxaysaa jikada, waqti badan aan ka qaadan, casho fudud oo maasha Allah aad macaan u ah weeye. insha Allah waa ka heli doontaan saan filayo haddii Ilaahay yiraahdo. isla soconna marka insha Allah cashada ka soo baxda waa arki doontaan. malawaxa waa kana maasha Allah saliid la'aan baa dubanaysaa saa hore usoo sheegay, dufan ma leh, waa healthy inta badan. marka maasha Allah wax dufanaba waxa kasoo gelayaa intaa yarta aan basasha ku waxaynayay. waa kana basashii, tuna fishkii iyo barbanoonigii saas isku soo dhex galeen maasha Allah cajiib. hadda waa kana insha Allah saa u laalaabayaan isla aragno. malawaxa waa kaas, malawaxa aad u qurux badan waaye maasha Allah. marka saa hal qaado ama 2 qaado hadba inta jeceshaa dhexda kaga shubeysaa, si fiican isugu soo laabaysaa. marka malawaxan wuxuu ku fiican yahay carruurta kama daadanayo markay cunayaan maasha Allah, waa siinaysid inta badan. waa kana marka hore baa kasoo laabay, kadib labada geesood haddana waa isku sii laabayaa, saas u sii duubaysaa maasha Allah. marka ilmihii kama daadanayo, si simple u cunaya, wixii si aan ka daadanin buu dhamaysanayaa maasha Allah. qayb marka cheese baa ku sameynaya insha Allah, qaybna without cheese aan sameynaya haddii Ilaahay yiraahdo. insha Allah waa kana hadda kan cheese la'aan sideeda u dhexgelinaya, waa ku laabayaa maasha Allah. marka hore kor baa kasoo laabay, haddana labada geesood, kadib baa isku wada laabaysaa maasha Allah. wuu fudud yahay, qoyska dhan casho uga dhigi kadhaa, carruurta ku jecel u sameyn kadhaa, waqti badanna ma qaadanayo. cheese-kana isticmaalaya insha Allah, aan dhexda kasoo gelinaya haddii Ilaahay yiraahdo. marka maasha Allah carruurta marka aad uga helayaan, si sandwich camal oo la noqonaya. qofkii raba cagaar waa kusii darsan karaa, waa kusii korsan karaa, laakiin intaanaba aad u macaan. haddaa intaa samaystid you will like it insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo. soo tijaabiya. waxaa ku dadaalayaa insha Allah cuntooyin fudud oo caafimaad leh, healthy carruurta insha Allah ka helayaan. xaajiga sidoo kaleeta aad u jecelahay inaan soo geliyo haddii Ilaahay qadaro insha Allah. please idinkana ka faa'iideysta, subscribe saara, gambaleelkana insha Allah taabta si idinku soo dhaco wax kastoo aan soo geliyo haddii Ilaahay qadaro insha Allah. waa kana hadda waa wadaa qayb waxaa ku sameynaysaa cheese haddaad jeceshahay, haddaad jeclayna without cheese sameysanaysaa. maasha Allah waa isla arkaynaa, waa kala jari doonaa insha Allah markaan cheese ku sameeyo qaybta cheese ku jiro si u muuqato. aad u qurxoon tahay, waana macaan tahay maasha Allah. kana insha Allah isla fiirino marka waa ku soo dhameynaya insha Allah. haddaa rabtid suqaar qayb baa u sameysan karaa, qoyska qaybo waxbay jecel yihiin, saa rabtida ka dhiganaysaa. laakiin I hope cashadan inay ka heli doontaan markaad tijaabisaan insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo. waa kana soo duuduubay insha Allah. markaan isla fiirino carruurtaan usoo koray isla arkayaa. marka waa kala jarayaa haddii rabin maxabad cheese leh haddii Ilaahay yiraahdo, si u muuqato aad u qurxoon tahay insha Allah. waana caafimaad, waa health, waa ka heli doontaan. soo tijaabiya insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo. waa kana saas u qurxoon tahay. waa ku mahadsantihiin daawashadiina.
please subscribe, like and share. insha Allah asxaabtiina la wadaaga hadaa ka heshay, commentigana nagula wadaaga wixii aad jeceshihiin insha Allah inaan soo geliyo hadii ilaahay yiraahdo. channelku waa channelkaaga, kusoo dhawaad. Assalaamu calaykum.